dhegaystayaal sida bulshooyinka kale ee dunida ku kala baahsan soomaalidii reer miyiga ahayd ee dhaqaalaheedu uu xoolo raacashada ku salaysnaa waxaa dhex mari jiray qardoofooyin iyo khilaafyo uu halganka noloshu u aanaysnaa qardoofooyinkaas waxaa ka mid a dilka daqarka dhaca xoolaha iyo hantida kale kufsiga iyo faraxumaynta dumarka aflagaadada iyo wixii kale oo inta qofi uu qof kale kula kaco gardarro loo arko la iskuna qoonsado ha yeeshee run ma aha in qardoofooyinkaas dagaal qura lagu furdaamin jiray siday qabaan soomaalida aan taariikhda bulshadooda u dhuundaloolin iyo weliba qaar ka mid ah waxqorayaasha shisheeyaha ee arrimaha sinjiyada inkastoo daaqa iyo biyaha ay tolalku halgan joogta ah ugu jiri jireen xoolahana intay kala dhacaan ay xasaradi ka dhalan jirtay haddana ka badbadis ayay u ekaanaysaa haddii loo qaato dagaalku inuu ahaa waddada keliya ee dhibaatooyinka bulshada wax lagaga qaban jiray waxaa jiray hannaan nabadeed oo ilaa maanta dhaqanka soomaalida xididda adag ku leh kaasoo ah hannaanka ergeynta loo yaqaan waa hannaan u eg waxa ay maanta reer galbeedku diblomaasiyadda ugu yeeraan ee xidhiirka qaramada casriga ah saldhigga u ah runtii cidina ma inkiri karto halganka adag ee nolosha reer guuraaga soomaalidu ku dhisan yahay inuu sababi jiray colaado hubaysanoo tolalka dhex mara lagana yaabo intay dheeraadaan in guyaal dhowra ay jiitamaan waxayse u badnayd colaadahaasi inay dhacaan oo keliya marka ay waanwaani dhacanto marka waddooyinka nabaddu ay soo oodmaan ee dhinacyada ay wax kala galeen ay isu garaabi waayeen guurka iyo arrimaha kale ee isdhexgalka bulshada ka dhasha ayay soomaalidii hore xeerar uga lahayd colaadaha iyo dhibaatooyinka kolba dhex mara sidii looga xaali lahaa ka hor inta aan dagaal lagu tashan ee in la aarsado aan lagu guddoonsan wuxuu tolka gardarrada tirsanayaa isku dayi jiray inuu ergeyn wax ku helo si loo baajiyo dhiig daata iyo colaad baahda waxay ka ergeyn jireen nin ama rag laga laayay magtood oo la siiyo xoolo laga qaaday oo loo soo celiyo ama xadgudub dhaqan xidhood ku saabsan oo loo geystay in laga xaalmariyo waxaa loo ergeyn jiray tol kasta oo soomaali ah iyada oo mar walba la fili jiray in ergeyntaa guul laga gaari doono haddii godob raagtay oo waanwaanteeda laga quustay aanay dhex ool tolka wax sheeganaya iyo midka wax loo sheeganayo shir la isugu yimaado oo waayeelka tolku ku dhan yahay ayaa lagu go'aamin jiray in tol hebel erga loo diro lana weydiisto xaqa ay ku sheeganayaan inay gudaan ergada la dirayaa deero ka halqaad ma ahayne waxay ka koobnaan jirtay rag la miiray magacyo waaweyn leh doodyaqaan wada ah aad ugu dhuun daloola xeerarka tolalka dariisyada ah u yaal taariikhda labada qolo ay wax kala galeenna in badan ka og haddii aan la waayin waxaa ergada inta badan madax looga dhigi jiray amaba la raacin jiray gabyaa magac weyn leh nin reerka wax loo sheeganayo gabayo ku beerdulcsan kara dood iyo dacwina wax kaga soo ceshan kara raggaa xulka ah markii la sooco ayaa lala ballami jiray qodob ayaa loo xusuusin jiray xaqa ay reer hebel ka doonayaani waxa uu yahay inta uu tiro la eg yahay iyo waxa haddii looga ogolaado ay la soo noqon karaan ergo waliba waxay wakiil ka tahay tolka dirsada ee ay u dhasheen waxayna doontaa xaq ka wada maqanoo soo celintiisa lagu aaminay badanaa go'aan aan la isku ogayn ma qaadato sidaa darteed waxay soomaalidu ku mahmaahdaa erga wixii la farana waa geysaa wixii la siiyana waa cuntaa haddii kolka wixii ay sheeganayeen aan la wada siine qaar looga ogolaado ergadu waxay ula noqon jirtay ciddii soo dirsatay ee ay ka dhasheen shirka lagu wada dhan yahay ee tolweynaha ayay arrinta ku soo bandhigi jireen si goobtaa looga go'aamiyo wixii ay ergadu la soo noqotay wixii laga yeeli lahaa kolba wixii guddoona oo halkaa lagu gooyo ayay mar labaad ergadu kula noqon jirtay tolkii wax loo sheeganaya iyo waayeeladiisa tallaabadaa dambe cidda wax loo sheeganayaa wixii ay ka yeesho ayay nabadi ka dhalan jirtay amaba ay colaadi ka aloosmi jirtay ahaan iyo wadar ahaanba hawsha ergadu waxay ahayd qaanta ay ku raar joogaan oo ama mag ah amaba hanti kale ah oo in la soo siiyo ay doonayaan inay si wacan u sheegtaanoo gartooda oo aan daldalool lahayn ay ka soo jeediyaan shirka tolka ay u ergaynayaan taas iyada oo maskaxda lagu hayo ayaa waxaa jiri jiray tilmaamo xubnaha ergada lagu dooran jiray tilmaamo ay ugu weynayd oo adkaysiga dhibaatooyinka kala soo gudboonaan kara hawsha ay u socdaan marmarka qaarkood waxaa dhici jirtay ergada in la aflagaadeeyo in la qadiyo oo aan dhowr aqoolood xoolaha loo gelin iyo in wada xaajoodka lagu dheereeyo laguna raajiyo
si ay inta u daalaan u caroodaan oo iyaga oo faramaran ay cidahoodii isaga noqdaan. dhibahaas oo kale inay dhici karaan iyada oo la garowsan yahay ayaa ergada loo soo cojiyay rag ad adagoo ku tilmaama dulqaad dheeraad xaggooga iyo dabeecad labadaba. irticaana oo ay soomaalidii hore dulqaadka ergada ku tilmaantay ayaa waxay ahayd erga waxaa loo dirsadaa mid duqula gaajo uga adkaysi badan, dhagax qorax uga adkaysi badan, doofaar xayd uga adkaysi badan, turtunna dhaxan uga adkaysi badan. ka wanaagsan ee soomaalidu siduu ahaan jiray, ergadu kolkii ay soo gaaraan tolkii ay u socdeen waa la soo dhoweyn jiray, waxaana loo dugsiin jiray loona waabi jiray ardaayo ay habeenkii ku hoydaan iyo geeda ay dhalaartii harsadaan. halkaas baa loogu geyn jiray cad iyo caano wixii loo hidin karo ilaa arrintii ay u socdeen loo yeelo ama lagu diido. tolka ergada loo yahay ee wax loo sheeganayaa wuxuu diyaarsan jiray niman ergada timid dhigood ah oo kala mid ah dhinaca aftahamada iyo gar aqoonta, kuwaasoo ku dadaali jiray inay iska daafacaan waxa loo sheeganayo, iyaga oo had iyo jeer u fiirsanaya sheegashooyinka ergadu meelaha ay goldoloolooyinka ku yeelan karaan. haddii kolka ay diblomaasiyaddu tahay awoodda ah in labada dhinac ee wax ka dhexeeyaani ay si qabow u wada xaajoodaan, sidaasna is-afgarawaaga jira ay ku furdaamiyaan, soomaalidii raacatada ahayd waxay lahaayeen diblomaasiyiin aan si rasmi ah hawshaa loogu tababarin, ha yeeshee qaabka nolosha degaankoodu wuu ku carbiyey. sidaa darteed baa shaqadii loo egman jiray ergadii soomaaliyeed loogu ekaysiin karaa diplomatic mission oo haddii la soomaaliyeeyo sodcaal diblomaasiyadeed lagu sheegi karo. kii ergada lagu dhaqi jiray ee loo qaban jiray iyo soo dhowayntii ay ka heli jireen tolka ay markaa ergada u yihiin wuxuu ahaa hab wanaagsanoo inoo muujin kara qayb ka mid ah xidhiirka bulshadii hore ee soomaaliyeed. iyada oo labada dhinac aanu midna si fudud danihiisa uga tanaasulayn ayaa haddana reerka martida loo yahay laga fili jiray ergadu inta ay la joogto inay xurmo u muujiyaan. sidaas ayaa dhaqanku ahaa, ha yeeshee mararka qaarkood ayay dhici jirtay in la xumeeyo oo hadal ama falal kale oo quursi leh lagula kaco amaba xataa la laayo. taasina waxay reebi jirtay utun aan harin iyo colaad ba'an oo kaba daraata tii markii hore